Bismillahirrahmanirrahiim kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halka naga daawaneysaan waa channelka Xogta Media waxaad ku soo dhawaataan warbixin gaar ah oo aan diiradda ku saari doono dharcad ka tirsan Niza oo laga saarayo garoonka diyaaradaha Aadan Cadde magaalada caasimadda Muqdisho iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo qorsheynaya in uu xilka qaadis ku sameeyo Yaasiin Faray agaasimaha ku meel gaarka ee taliska Niza haddaba warayaan daawadayaal idinkageena warbixintan ayaana ku soo koobi doona hayeeshee intaanan guda gelin waxaan daawade ka dalbanaya on ka codsanayana muuqaalkan like saarto la wadaagta saxaabtaada adigoo subscribe inoo saaraya channelka oo furanaya gambalaalka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawade muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag markaana daawade waxaad ku soo dhawaataa warbixinteena loolanka siyaasadeed ee ka taagan madaxtooyada Soomaaliya ayaa u muuqda in uu ku fiday garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada caasimadda Muqdisho oo ah marinka duulimaad ee ugu muhiimsan dalka halkaas oo shantii sano la soo dhaafay ay dhibaatooyin kala duwan ka geysteen kooxda Fahad Yaasiin hogaamiyo waraaqa sabtidii ka soo baxday xafiiska wasiirka amniga xukuumadda xilgaarsiinta Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa lagu amray hogaanka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka in ay mas'uuliyadda amniga garoonka ku wareejiyaan booliiska dibna u soo celiyaan wixii asgar ah ee Niza ka jooga Aadan Cadde sida ay cadeynayaan xogo muhiim ah go'aanka wasaaradda amniga ayaa yimid kadib markii wasiirka gaashaandhigga iyo wasiirka amniga ee amar diido kala kulmeen saraakiil dharcad ah oo Niza u qaabilsan garoonka xilli ay wasiiradu garoonka u joogeen soo dhaweynta mid ka mid ah madaxda maamulada oo ka qayb galaya shirka golaha wadatashiga qaran toddobaadkii hore warar hoose oo lagu kalsoonaan karo waxa ay sheegeen in taliyaha hogaanka dabagalka siyaasiyiinta Niza Cabdullaahi Daahir oo loo yaqaan Cabdullaahi Dheere uu ka badbaaday dil qorsheysan xilli uu ku sugnaa garoonka diyaaradaha taas iyana qayb ayay ka tahay sababihii keenay go'aanka Cabdullaahi Dheere wuxuu muddo dheer ahaa garabka midig ee agaasimihii hore ee Niza Fahad Yaasiin Xaaji Daahir hayeeshee kala aragti duwanaan salka ku haysa isku dhac isaga iyo Cabdullaahi Kulane oo sargaal awood badan ku dhexleh Niza ayaa sababtay in uu noqdo gooni u socod si ka duwan hogaanka hay'adda ula shaqeeya xafiiska ra'iisul wasaaraha wax yar kadib markii baraha bulshada lagu faafiyay amarka Cabdullaahi Maxamed Nuur safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa isla markiiba xiriiro la sameysay xafiisyada ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka amniga waxayna walaac ka muujiyeen talaabada nabad sugidda looga saarayo garoonka diyaaradaha talaabadaasi waxay horseeday in wasiirka amniga uu cadeeyo ujeedada waraaqda uu amarka ku bixiyay taas oo ku macneeyay in isbedelka la xiriira ciidamada Niza ee ka howlgala garoonka Aadan Cadde kaliya quseeyo ciidamada dharcad ee ka howlgala gudaha garoonka terminalka taas oo ka dhigan in ciidamada gacanta ku haya baraha kontaroolada ay shaqadooda sii wadan doonaan asgar ka kala tirsan ciidamada waran iyo gaashaan oo qayb ka ah hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Niza ayaa saldhig ku leh garoonka diyaaradaha kuwaasi oo si gaar ah ula shaqeeya saraakiil Mareykan ah amarka wasiirka amniguna wuxuu u muuqday inuu ku wajahnaa ciidankaasi Niza waxay ku lahayd garoonka awood badan waxaana xilliyo badan la hor istaagay shakhsiyaad doonayay inay ka baxaan caasimadda halka ay hore isaga dhagatireen amar ka soo baxay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo ahaa in aan qofna laga hor istaagi karin socdaalkiisa waxa ay ku lug yeesheen dhowr dhacdo oo hadalhayn xoogan abuurtay halka wasaaradda amnigu sheegtay in saraakiisha Niza ee dharcad ah ee ku sugan garoonka laga soo gudbiyay dacwo la xiriirta adeegsiga awood ciidan si sharci darro ah dhanka kale dhammaan saraakiisha nabad sugidda ee 4 sano la soo dhaafay ee la shaqeynayay Farmaajo iyo Fahad Yaasiin ayaa baxsad ah taas oo keentay in dadka qaar qorshaha wasaaradda amniga ku macneeyaan in xukuumaddu doonayso inay hor istaagto saraakiisha la tuunsan yahay si walba ay ahaataba hadda ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxa uu qorsheenayaa in uu xilka ka qaado Yaasiin Faray oo ku magacaaban agaasimaha ku meel gaarka ee taliska Niza ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya injineer Maxamed Xuseen Rooble ayaa ka fakaraya in uu xilka ka qaado taliyaha ku meel gaarka ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Niza
yaasiin cabdulaahi maxamuud yaasiin farey sida aan ogaanay islamarkaana aanu kasoo xiganay xubno qaar oo ku dhow ra-iisul wasaaraha Rooble toos xilka ugama qaadi karo yaasiin farey, hase yeeshee wuxuu horgeyn karaa golaha wasiirada oo leh awoodda xilka qaadista. yaasiin farey waxaa lagu tilmaamaa gacanta midig ee madaxweynihii hore maxamed cabdilaahi farmaajo, iyadoona uu ra-iisul wasaaruhu tuhunsan yahay in uu caqabad ku noqon karo hufnaanta doorashada. sida muuqata ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa qaadaya tallaabooyin dhowr ah oo lagu cadaadinayo yaasiin farey kahor inta aan si toosa xilka looga qaadin. yaasiin farey waxa uu hormuud u yahay khilaafka haatan dib uga soo dhex cusboonaaday ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kale madaxweynaha kadib markii uu muran xoogan hareeyay kursiga uu tirsigiisu yahay hoob 67, kaas oo sida la sheegay uu yaasiin farey kusoo baxay bishii November. taliyaha ku-meelgaarka hay-adda NISA yaasiin farey ayaa galaaftay 7 xubnood oo ka mid ahaa guddiga xalinta khilaafaadka kadib markii si aan sax ahayn ee u maareeyeen cabashadii laga keenay kursigaasi. ra-iisul wasaaraha ayaana 18 Diseembar shaqada ka eriyay xubnahaasi. yaasiin farey oo sidoo kale ku magacaaban taliyaha nabad sugidda gobolka Banaadir ayuu madaxweyne farmaajo bishii Sebtembar u magacaabay in uu noqdo kusimaha hay-adda NISA maalmo uun kadib xilka qaadistii uu ra-iisul wasaaruhu ku sameeyey taliyihii hore ee hay-addaasi Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. sida uu sheegay wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dubbe, golaha wasiirada ayaa taageeray dardargelinta ciidamada amniga iyo sugidda amniga caasimadda si ay inoogu dhacdo buu yiri doorasho nabdoon oo xasiloon. waxaa la ayiiday oo la taageeray qorshaha amniga caasimadda oo horey loo ansixiyay si loo dardargeliyo amniga caasimadda iyo qorshaha amniga caasimadda oo abuurayay guddi ciidan oo isku dhaf ah oo ka kooban dhammaan ciidamada qalabka sida ayuu yiri wasiirka ayaa yiri dardargelinta ciidamada amniga iyo sugidda caasimadda ayaa iyagana la taageeray oo la ayiiday iyadoo loogu talagalay dhammaan 17 degmo in si degdeg ah looga howlgalo si ay inoogu dhacdo doorasho nabdoon oo xasiloon. haddii Rooble uu meesha ka saaro yaasiin farey waxa uu noqonayaa ninkii saddexaad ee ku dhow madaxweynaha ee uu meesha ka saaro marka laga soo tago Fahad Yaasiin iyo Cabdulaahi Aadan Kulane oo soo noqday madaxii shaqaalaha ee hay-adda sirdoonka. guud ahaan daawadayaal waa inageynta warbixintii aad ka daawanayseen channelka Xogta Media ee aan ku leenahay YouTube-ka. haddii aad daawatay warbixinta like inoo saar, muuqaalka subscribe inoo saar, channelka fura gambalaalka si durbadii baad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino. sidoo kale daawada muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag. tan iyo warbixintan mid la mid ah inta dib isugu kulmi doonana nabadgelyo.